dhaweyntii iyo waxa la soo gaaray iyo xilli dambe oo salaada laga soo baxay aad baa arrinku haatan u xoogaysanaya halkan aad ka arkay madaxweynaha ayaa iminka soo degay dabcan sida wararkan ku helayno oo ku soo wajahan toosa ayaa ku jira agaasi Axmed Cabdalla Tiyaana halkan dad badan kala socdaan mudan agaasime qowr boqol qof aan kala socdo yarboodka ma adin laakiin farxad ayaan dadku ku soo dhaweynaynaa anaga halkan agaasimayna si magaalada iyo waddanka halkii wax mareen hadda شعب لا سرقال كان كسريني قاعدين كي وصل قاعدين كي وصل وحرمنا هنا وقدنا برحدة هنا فوق الديان برحدة عنك هاي بانجورنا أفيانك الدولة ده قرآن سعد كيف مريم؟ في عنا الحمد لله. هاي
مدحويني فدرال كاي ومدحويني بنتلان وحنا كسو جرا شعبنا وحو يسمينا إنسان ويان meel dhow bay soo mareen هاي زودو مدحوينه زودو Soomaaliyeed زودو بنتلان aad diyaargarowga laga xafladood baa saaran waxaan ku jirnaa xafladii 8 January iyo xafladda soo dhaweynta madaxweynaha federaalka iyo xafladda furitaanka ee laboorka caalamka ee garowe saddexda xafladood ayaa insha Allah dhigo ama ku jirnaa Puntland iyo reer Soomaaliyeed meel ay joogaan waxa la yiraahdaa iyo gobonimo iyo amaliyo طبعا waxaa gudbaya waa gaadiidkii nasaaka xilli hore ku bilowday garoonka مسؤولينta dhaashane halkan dad badan baa ka daawanaya oo gudaha dalka iyo dibadda jooga noo waran xagee wax maraya sida aad u daawanaysan halkan waa barxadda Puntland caasimada Garowe dad shacab isku soo baxaya maxadda Garowe kuwaas soo dhaweynaya madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya dadka barnaamijka kuwa heer shay kuwa Afrika waxaan sheegaynaa Puntland ay tahay meel lagu soo hoyo ama lagu soo hurto gadaad ka qabta maanta ka baxday inay tahay meel nabadeed meel caafimaad qabta meel shacabkeedu ay shacab Soomaali sax oo isku duwan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya farmaajo iyo dowladdiisa iyo xukuumaddiisa iyo ra'iisul wasaare Khayre waxay noo saaran yihiin dhammaan Soomaalida gobolladeeda kala duwan hadday ahaan lahayd bay iyo Hargeysa iyo weliba Soomaaliya taliya aad baa u mahadsan tahay dhaashane taliya fardafuul dhinaca ammaanku sugaya fardafuul dhinaca ammaanka dadka iyo sida wax u socdaan halkan waa taliya fardafuul oo kala bixinaya ammaanka iyo sida wax u socdaan si fiican baa ammaanku kala socdaa xaalad oo kale way waa kala diganta aad baa u mahadsan yahay taliyo wax walba si loogu talagalay u socdaan dabcan abayeenka iyo dhaashane dabcan aad baan ugu mahad celinaynaa iyo mas'uuliyiinta kala duwan duqa hore degmada Garowe haatan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka Puntland عليكم السلام هذا سوينا نور رمضان في واحد سعد هو صدق وين مدحوينها فدرالك المفروض أقصد وين مقالو صدق وين مقالنا بدل مقالو مختصر مقالو دوبيت ومقالنا عيد في سلوك سلويني طبعا wax qurux badan baa soconaya maxaa hadda halkan nala waqtiga waa soo dhaweeyay hadda waqtiga soo dhaweeyay halkan ugu been doona dadku mahad celin doona aeroportkana ku soo dhaweeyay dad badan baa ku soo dhaweeyay مسؤولينta aeroportka taa kamid ahayd markaas sida aeroportka jawgiisa sida lama malay aad baa loo soo dhaweeyay meeliya kala soo tirada badnaayay sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda deegaanka iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo sportska aniga waa agaasimaha wasaaradda halkan waxaan u taaganahay waxaanu ka midnahay shacabka nabadda taagan sida aad aragtaa shacabka reer Puntland dowlad madaxweyne ilaa madaxweyne baarlamaan iyo agaasimayaashu waxay u siman yihiin nabadda waartay dadka aad daawanaysaa dhammaan waxay ka kala yimaadeen gobollada dalka Soomaaliya ka yimaadeen ilaa iyo meesha la yidhaahdo Hargeysa ilaa iyo Kismaayo meel walba waa laga yimid sida aad daawanaysaa gabdha waxaa soo haya madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne ku wareegi doona waa soconaya dhinaca gaadiidku gaadiid fara badan ayaa haatan gudbay kuwa kale waa ay ku soo baqan yihiin hayaadan waxaan xabalyeynaya soo dhaweynaya madaxda u taagannahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaa waxaan aad u rajaynaya sida nabadgelyad u xasishay in la soo celin doono ciidamada xuquuqdoodii la waayey asalaamu calaykum aad baad u mahadsan tahay طبعا halkani waa barxadda magaalada Garowe hawlo fara badan ayaa soconaya oo soo dhaweynta dabcan ay
sara maraysa marka anaag soo wacayada شهر قرايه صاحبه بدن بaa halkan iga weydiinaya dabcan gaariin wada kada camera oo adiga aan ku baxno xogayaha dawladda hoose ee magaalada Garowe Maxamuud Cali Guray ma sha Allah ay maanta iyo jawiga magaalada Garowe xogaye magaalada jawiga ayada waxa ka jawaabaya dadka ganacsiga shacabka Puntland ay ay soo dhaweynayaan madaxweynaha federaalka iyo taageerada iyo ahmiyadda ay hayaan maamulka dalka ka jira amni iyo horumarka iyo nabadgelyada ka jira waxa ka saaraysa oo ka jawaabaya shacabka caasimada saad bal shacabka u diyaariseen abaabulka iyo waqtiga la galiyay arintaas waa sida ku bilaabatay shacabka mar walba waa soo wacyigelisay mar walba wuxuu taageeray sababta iyo taageerada shacabka iyo dawladda ay gacan uga qabanayaan ayna u arkaan wax walba la qabanayo talaabo kasta oo la qabanayo horumarkooda iyo dawladda marka waa dad ay iska bisin waxayna urka hooyada waxa dagaal soo baxay dawladnimada iyo shacabka iyo horumarka aad baad u maasan tahay aad baan ku mahadcelinaynaa akhyaarta sharafta leh halkan nagala socda fariimaha quruxda badan soo qoraya aad baan iyagana ugu mahadcelinaynaa oo halkan nagala socda waa bartamaha barxadda magaalada Garowe oo soo dhaweyntii u ballaareed maanta dabcan ay ka socoto Garowe lagu qabto farmaajo iyo Garowe ma sha Allah anaguna waxaan mahadcelinaynaa hambalyo u diraynaa shacabka Puntland sida ay uga jawaabayaan soo dhaweynta madaxweynaha dawladda federaalka iyo sida ay u muujinayaan amniga iyo horumarka ay ku haystaan dawladooda iyo systemka ka jira maamulkooda ay u muujinayaan iyo sida caalamka oo kale ay uga go'an tahay inay soo dhaweeyaan dawladnimada Soomaaliya iyo wixii mustaqbalka aad baan uga mahadcelinayaa shacabka iyaga waxaan leeyahay ilaahay ajarkeeda iyo abaalkeeda hayda siiyo waligeena waxaan kaga tagayaa inuu ku roogahay sida aad soo haystaan gacmaha inaad dawladdeena iyo maamulkeena iyo soo dhaweynta dawladda Soomaaliya aad gacanta aad baa maasan tahay Maxamuud Cali Guray iyo xogayaha dawladda hoose ee magaalada Garowe oo ka hadlayay soo dhaweynta iyo qaabka ay wax ku socdaan gaar ahaan magaalada Garowe مسؤولين كلا دوان وهالكن وزير كحيلك مالية بنتلان عبد السلام بشير عبد السلام وزير نور من حكم مقدمات
dhaashana waan is aragnay mar walba wuxuu heegan diyaar u yahay inuu ka qayb qaato hay dhaashana mar raba diyaarna soo dhaweyntii qorada kulul oo saacad imika baarasa baarigi labadii doornimo dhammaan casbada Puntland waxay soo saartay wadnaheedii iyo beerkeedii oolkeedii wax garadkeedii lama kala hooyay aaba iyo dhalinyaro Soomaalnimada dhabta halkalta waxay taala halkan oo hoy loo sameeyay yahay la kala xigin meel dhaqankii cadaalad ka hirgaleen mana ay shacabka dawladda isku joogto هذا كله كفرين هذا الرجال كانت وزارة الشغل شغالة والله بقول لك صح waxaa soo socda dabcan gaadiidkii xooggiisii ugu badnaa baa hadda soo galay waxaa ugu soo horeeya waad u jeedaan baabuurta haatan xaggayga xaggan soo socda marka xooggiisii hadda soo bilowday oo soo qulqulaya dhinaca gaadiidka qasaska maraya baabuurtu way isku qasan yihiin dabcan baabuurtaas soo qulqulaysa maadaama aad u fara badan xilliga ay soo dhammaato ayaa madaxweynuhu oo halkan imaan doonaa dabcan oo farxadda magaalada Garowe uu ku degi doonaa sida xogta aan ku hayno halkaas uu kula hadli doonaa banaanka qof halkan ku sugan oo soo dhaweyntiisa heelanka ku jira صادرنا نور شباب فرح مانتا waa sawir qaadaha soo jeedaan shaqada dhinaca saamaad ka gashay وزير رجل هل مر ولا قاعد جامعه هل مر ولا قاعد صوت الله رجع قارو سيره sheeganayaan عاود هل حق ولا لنا ورا iska soconaysa maanta
Facebook live حاجة أنا كده عسى أنا ما يقول بس كذا Facebook live حاجة أنا كده عسى أنت ما جالس ولا يا getaway يا welcome أنت فرماجة welcome as you can see what you see right here is getaway Puntland the capital city of Puntland getaway all these people are here to welcome the president of Somalia Mr. Farmaajo والله تجي أنا لو سلوي عايز لا معاكم كلنا لك si sharaf leh reer garow waa dad wanaagsan si fiican oo soo dhaweeyeen madaxdeena federaalka timid qayb ka taabanayna ya fuuda timid kamid ana waan kamid ahay dhalinyarada wax soo dhaweynaya kamid ahay qabanqaabada kamid ahay marka waa kaas aad u adag hawl qaran aad u adag waa ka saas waay waad maqlaysaan fariinta la soo gudbinayo madaxweynaha inuu soo dhow yahay waa fariintii ugu horeysay oo halkan laga jeediyo maqlaysaan fariimaha dadka loo soo gudbinayo halkan ku sugan inay ammaan ka shaqeeyaan inay u diyaar garoobaan soo dhaweynta madaxweynaha inuu soo dhow yahay oo waxyaabaha ugu muhiimsan halkan dadka looga sheegayo iyo inay safafka ay toosiyaan gaadiidka dhikirada loo yaqaana haatan gudbaya oo soo dhaweynta qaybka maanta gaadiidkuma kala harin noocu doonaba ha ahaadee barxadda garowe ayaa toos loogala socotaan bartan facebooka waxaanu jecel lahay inaanu idinla wadaagno waxyaabaha halkan ka soconaya si aad idinkuna indhihiina aad uga aragtaan saaxiibada halkana ku jirana runtii aad baad u mahadsantahay waxaanu siinaynaa dadka say u arkaan waxa socdaan booliska ayaa haatan gudbaya marka dabcan tirada gaadiidku ay soo guraysaa gaadiidka xooggiisa waa uu gudbay nambarka haray marka uu goordhow waxaa bilaaban doona baabuurtii sida gaarka ahayd ugu diyaarsanaa saaka oo xilli horeba iyagu baxay heesaha wadanigaaba halkan ka shidan dadku waxa ay ku leeyihiin waa wada farmaajaysan ah 8 Janawari ayay sidoo kale arrintani xuskeeda oo socday qabanqaabadiisa ayay ku beegantay iyo farmaajo dabcan sidaan nin sheegay baabuurtu saaka magaalada wax ku haray way yaraayeen baabuurtii waa ay sii xogaysteen kuwa gaari weyn ayaa soo jira horta maxaanu bedelnaa saaxiibada la socdow maxaynu wax ka bedelnaa taladiina maxay tahay soo jeedinaysaan waan u jeedaa xogaa khadkiin yara daciif yahay laakiin waa soo xogaysan doonaa la soco bahdi miidiyaha ayaa iyaguna qaybka shaqada socota baabuurtu noocay tahay gaariga markaasi wacyigelinta dadweynaha ee wasaaradda warfaafinta Puntland ayaa gudbaya
kooxaha markaasi fanka ayaa saaran gaarigaasi oo soo dadkii badankoodu waa ay soo xiroodeen waxaa la sugayaa tallaabada xigta waa tiradu هذا صح وحنا والله هذا وحنا وأنا كل ما أعرف توكا سايس الله يفيصل يا الله يفيصل هذه هاي سودر دي ملعبين بس يا اسمع ما السيارة لا ساعة السيارة عالم كله سوينا موت عالم وين نسوي سيرنا إلا تذكروا كل يوم تسمعوا الشوارع نعم وأنا قاين أمان كسر قش قينيس أكثر في دي ده شوف كذا بقى رامي هلو بترا تيفي هاي ودك واحرين وكا بس على قارك بركة كوبا كاميرا بركة كوبا شو دقن كده عادي baa gudbaysa bajaajta waxay ka mid tahay gaadiidka dheereeya oo soo dhaweynta qaybta ka ahaa يور agaasimaha radio garowe ahna wakiil wareedka BBC da haye ka waran garoonkiina waa tagtay saaka هذا وجه garoonka sida dadweynaha uu yahay dadweynaha maanta qorta lama qiyaas karo wax walba sida loogu talagalay u socdaan calaamadii hore hadda koonfur galbeed baa gudbaysa calaamadooda marka soo dhaweyntu way balaaran tahay maamulada qaar calaamadoodii dadweynaha markaas metelaya way wataan koonfur galbeed waxaa gudbay gaadiid ay wataan dadweynaha koonfur galbeed UN-ka haata gudbaya waa gaadiidka ugu dambeeya ka mid yahay dabcan wax yar baa haray wax yar baa haray baabuurta madaxtooyada ilaa hadda ma aragno
gaadiidka yuanka maraya gaadiidku ay soo kala horeeyaan mar walbana baabuur hor la gudbaysa oo runtii aad telefishinka dowladda Puntland ka wada soo dhaweynta maanta alla leef lageesa soo dhaweynta aad u ballaaran tahay soo dhaweynta fariimaha la gudbinaya gaadiidkuna toos u gudba dadku waa ka degayaan gaadiidka marka ay halka yimaadaan safafka dhaadheer ay wax ka galayaan ciidanka waxaa la rabaa inaysan dadka maanta qoraxda taagnaa inaysan waxba keenin tartiib ay uga dhaqmaan haddii la uu dababalaabo dadweynaha waxaa laga rabaa inay iyaguna ay awaamirta qaataan si ma garanaysaa shaqadu inuu ku hagaagto shaqadu si fiican bayna ku socotaa ilaa iyo hadda waa la soo dhoweeyay wax yar ayaa inoo dhiman dhamaystirkii ayaa inoo dhiman dhamaystirka aynu insha allahu dhamaystir noo soo dhoweynta sidii laynu ka aqoon jiray oo sharafta badneed aynu ku dhamaystirno صور يقولوا كلا صباح زرقاء